haye markan waxaa soo gali doonta aroosada ugu shida degmada Kaxda xafladan maanta ayay qayb ka tahay waa ay taagan tahay caadi ma ahan way soconaysaa haye waa kan si weyn ayaa loo sugayaa aroosadan maadaama xafladan ay tahay xaflad aad iyo aad u weyn hadda ayay soo galaysaa waa aroosadii ugu shidnay degmada Kaxda caadi ma ahan muuqaalka like saar haye way socotaa markan waa la galbinayaa aroosada daawadayaal waxaa ku suganaa xafladii weyneed ee sanadlaha ah hidaha iyo dhaqanka fu'aad maanta degmada Kaxda joogna xafladan inaba caadi ma ahan hadii aad daawanayso muuqaalka like sar waxa taabagelinaysa maamo fu'aad oo ah maamo Soomaaliyeed isla markaana halka ku soo bandhigaysa dhammaan agabkii hidaha iyo dhaqanka sidoo kale cuntada nuucba nuuc ayaa halkan yaalo fu'aad waxay caan ku tahay qurxinta dumarka iyo sidoo kale aroosyada in ay kala kiciso degmada Kaxda ayaan joognaa caadi ma ahan shaaciyo waa kana Master Shaaciye wuxuuna waalaya Master Leejo ciyaaryahanka cusub iyo sidoo kale boqorada ugu shidan Kaxda ayay ka shidan waxa ku suganaa xaflada sanad guurada ama sanadlaha ah ee hidaha dhaqanka Fu'aad waa maamada kaliya ee soo bandhigta xafladan sanadkiiba mar inta waad arkaysaan hilib ayaa lagu dubayaa caadi ma ahan wuu dubmayaa waad arkaysaan waa sugulana Shaaciye waa kan ay soo dhawo waa dhawaa Catoosho horta maanta farxad bay inoo tahay inaan ka soo qayb galnaa xaflad noocan oo kala waxa kale farxad waa dareero ya maantiri waa sugi laahay waa kalaaman soo dhawo magacaado isaga asxaab horta aad ugu dhawaa xafladda sanadlaha maxay ahayd wallahi waxyaabo cajiib ah meeshan kula kulma bariga waxaan ku suganahay degmada Kaxda maamo Fu'aad xafladdan sanadlaha wallahi waxyaabo badan laga faa'iiday waxyaabaha cajiibka ee qadiimiga ee meeshan maanta ku arkoyn waa waxyaabo maaragtay qadiimiya ma arag xaflad noocan oo kala wiligeey ma arag aad iyo aad ugu faraxsanahay hilibka ayaa soconaya waa u jeedaan asxaabay hilibka uu dubmaya waa kaasa caadi ma ahan xafladda haye markan waxaa soo gali doonta aroosada ugu shida degmada Kaxda xafladan maanta ayay qayb ka tahay waa ay taagan tahay caadi ma ahan way soconaysaa haye waa kan si weyn ayaa loo sugayaa aroosadan maadaama xafladan ay tahay xaflad aad iyo aad u weyn hadda ayay soo galaysaa waa aroosadii ugu shidnay degmada Kaxda caadi ma ahan muuqaalka like saar haye way socotaa markan waa la galbinayaa aroosada daawadayaal maanta caadi ma ahan Fu'aad ayaa kala kicinaysa aroosadan hadii aad daawanayso like saar oo saaxiibada gaarsiiyay Shaaciye arinta maxaa ka leedahay arintan aad bay isku haysataa waa mid xasaasi ah Kaxda maasaan iyo galos ay sheekay maruusa Kaxdii maasaan iyo galos ay sheekay maruusa maanta dhararka la cushan waaye cunooyinka ay nooc la cunayay waxaan arkay leejo maanta waxay ka gaartay caloosha ama معنا عوايد المذكرة وصلنا حفلة الله يوم فؤاد تابلينيسو ما يعني الحفلة هذه هذا قيمة بدن وماشي أنا ما أرتاح كسوق بالحفلة الله أنا وكلام الوايد الناس لا جماعة عدود الشعاد ما لا جماعة وبحث والله عوايد ما على عوايد أنا أنا كذا يصور علي هذا شيء والله تاي هذا شكرا لهم وهذا أقول صوت تاي أول بان تغن أليس وعاو بانتا إن أنا مركز غير بشحفلتان وقصيدة يرانكا مفادي تابلينيس وأركيس الدعوة leeja anaga ayuu nawaalaya dharka hidaha iyo dhaqanka aan wadano waa Fu'aad waad arkaysaan caadi maahan Fu'aad beauty salon iyo soo kala aroosada ayaa halkaas taagan waa aroosadii ugu shidnay degmada Kaxda oo qaybka xafladda maanta halka ka dhacayso maadaama arooskeeda uu ka dhacay Kaxda Fu'aadna ay si weyn ay u taabagelineysay waad arkaysaan hadda waxaa la guddoonsiin doonaa koobab ay ku sawirayeen magaca Fu'aad iyo sidoo kale dhammaan social media halkan adduunka laga isticmaalo waa arkaysaan hadda ayaa la guddoonsiinaya aroosada iyo malciisadeeda waa caadi ma ahan waa u jeedaan degmada Kaxda ayaan joognaa qurax looshinkan aad arkaysa Kaxda leeyahay arooskaas u qurxan waxa kala kicisay Fu'aad beauty salon
sidoo kale waxay ka faa'iidaysteen xafladan hidaha iyo dhaqanka ah oo halkan ka dhacaysay oo si weyn loo soo buuxdaafiyey waad arkaysaan cambiya yaalo qudaarta noocyadeeda kala duwan ayaa taala aroosada waa kan hadda ayay fadhiisanaysaa daawadeel oo ujeeda way socotaa markan caadi maahan masar shaaciyo uu ilmeynayaa daawadayaal geeskaas waa arkaysaan aroosadii ayaa fadhiso iyo sidoo kaleente waa kan masar leejo oo halkan fadhiyo shaaciye catooshare haye leejo noo sharac alaabtan hidaa iyo dhaqanka wallaahi hidaa iyo dhaqanka waxa waaye ma waa wax ka maqan ma jiraan haddayna qalahayd dhiisha caanaha haddayna qalahayd xaarinkiisa horta lagu wareejihay haddayna qalahayd dambiisha suuqa loo qaada lahay haddayna qalahayd gaashaamanki dagaalka burjiko walaa aashuun wax maahan looga taga ma jiraan waxa waa lagu dhan yahay caadi maahan dabiici ugu horreeyo maxaa la yidhahdaa oo falkiya dhabtaan oo arka mar hore ugu dambeysay waxa waaye muddo ma arkin aad ugu faraxsanayna marka la arko xagga maxaa yaal waa qudaar ismaandhees awgeer wax ma yaal liindhalaan waxa waaye meesha waxa waaye wax laga soo taga ma lahan markaas asxaabta waa arkaysaan xafladan maanta aaday u kala kacsan tahay qudaartii waa taalaa wax ka maqan male aroosadii waa fadhisaa sidoo kaleente qaybtan hidaha iyo dhaqanka yaalo waa arkaysaan shaaciya catooshare iyo sidoo kale leejo way fadhiyaan boqorada jigjiga oo galey ama misige tumeys waa arkaysaan sidoo kaleente halkaas waxaa fadhisa talisaniini oo maxaa lalahay dharigay wax ku karsanuusa sooray karsanaysaa caadi maan xafladan waa xaflad qiimeeya qaaya badan leh waa xaflad weyn oo ay ka soo qayb galeen dhammaan dad baraha bulshada caanka ah iyo sidoo kale dhalinyarta degmada Kaxda waxaana suurtagelisay maamo Fuaad oo ah maamo Soomaaliyeed isla markaana soo bandhigta sanad walba mar hidaha iyo dhaqanka iyo sidoo kale waxay soo bandhigtaa cunooyinkan aad arkaysa waa digaaga shaaftan waa waxaan oo dhan ciidaa taabigelisay maamo Fuaad ay shaaci tani waa xafladii ugu quruxda badneed ee abid aan ka qayb galno bahda durdurmeedii waan ugu cazuumay waa xaflad marka adeegto qiimaheedu aad u sareeyo hilib duwana haysta shaaftan iyo cunitaan kale ka dhiman afka gelinayo birtina wax arrinta ka cabsan labiska xataa istel labiska xataa maanta ayada waa sida nooga muuqataba horteena fanaanad horteeda ku qoran sidoo kale leeja meesha lagu cazuumay haday cudur daaro sheegto xoolaha waa la gaaday cunadu waxa umaleeyahay inta ay ku eegto dhahay ona kala dalbaday sidoo kale tani waa tii qarniga ma oran kara tii bisha waa xafladii qarniga oran kara hambaliya leena maam Fuaad sidoo kale inta asxaabta waa u jeedaan gabagabada barnaamijkeena ayaan soo gaarnay aroosada waata silib duwan ee haysata malxiisadeeda agta ka fadhisa caadi maahan aroosada way fadhisaa habeenka kan caawa degmada Kaxda ayay ka shidan tahay aroosadii ugu shineed ee degmada Kaxda waaye haye hidaha iyo dhaqanka ayaa lagu soo dhaweynaya aroosada loo isagaala soo dhaweeya leeja ayaa jalboonaya haye leeja waa kan arooskii qarniga horta waxa ma waxa biriga waxa dhaqanno oo nooc kala lagu baray wiiligi qaando wax kuma cunin qaando iyo filafeera wax lagu dhibo ujeedin waxa dhaqanno oo barooyisa maam Fuaad waaye marka dambe waxa ina wax badan si faa'iidi doono waxa dhaqanada biriga bartay kamid tahay in filafeera wax ku ruugo waan soo dhaweeyaa caadi maan maxaa ka casata ay waa ka aroosada aad bay noo walaaqaysaa isteelkii labiska xitaa waad u jeedaan maanta waa maalin marka adeegto sharafteeda qiimaheedu wadato catooshow maanta miisaaniyad noocee ay ku leedahay marka asxaabta waa arkaysaan xafladan weyn sidoo kaleete qaybtaas waxaa lagu tumayaa galeydii iyo sidoo kaleete dhariga oo soorta lagu karinayo waa arkaysaan talisaniini waa ay jalboonaysaa markan caadi ma ahan waa ay dhoola cadaynaysaa aad ayay u qurxantaa waad arkaysaa hidaha iyo dhaqanka marka aad soo gashatay waxaa kuu malaynaya Soomaalidii hore waad nawaalaysaa aroosada waad arkaysaa ilahaan aad ayay u dhoola cadaynaysaa ha u malaynin fanaaniintii hore ee waa aroosada sanadkan degmada Kaxda lagu soo dhaweeyay waad arkaysaa daawadayaal
caadi ma ahan aroosada iyo malxiisada marka ay arakeen bahda durdur meediya aad iyo aad ayay la yaabeen waa gabdhihii ugu shinaa degmada Kaxda arooska inaba caadi ma waad arkaysaan shaaciya ayaa joogo leelja ayaa joogo talisaniini ayaa joogto boqorada jigjiga markan waa kan galeyda la tumaya waad arkaysaan ama misigadii caadi ma tumisa ayaa socoto haye way tumayaan waa u jeedaa haye way tumayaan wayna waalayaan caadi ma ahan dharkayda iyo dhaqanka gabdhaha Soomaaliyeed aad ayay ugu qurxayeen ma lii kara shaaciye waxaad moodaaba in loogu talagalay inay xirtaan dhar noocan oo kala horta waxa way face cusub waa baranay hadaa arki jirta Anjeli lu kor u qaadayso maanta Anjeli wada cimaamadan arkaysa oo hal meel uu ka banaaneen waa dareemi kartaa surnaantan waxa ku wanaagsan dharkeena hidii dhaqanka farxadda gabadhan waxay ku jirtaa hidii dhaqanka marka asxaabta waxa jecelna barnaamijkiina inaan intaas ku soo gabagabeeyno oo Fuad Beauty Salon ayaa taabigelinaysay xafladda waxa ka soo qayb galan dhalinyaro caanka bara bulshada rag iyo dumar soo kaleente dhalinyaro shacab ah durdur meediya waxa ka socday masar shaaciya catooshare leejo aroosada halka fadhisay malxiisadeeda sidoo kaleente aroosadii malxiisada marka laga soo tago boqorada jigjiga soo kaleente talisaniini iyo gabdho kale ayaa halka